midowga Yurub waxa ay sheegayaan in ay cunaqabateen dheeraad ah saari doonaan Belarus sababtuna waxay ku sheegeen inay tahay sidii ay ula dhaqmeen muhaajiriinta xadka ay la leeyihiin Poland gudiga midowga Yurub ayaa sheegay in xadka imika ay joogaan ku dhawaad 2,000 oo qof oo isku dayay inay midowga Yurub soo galaan Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya muhaajiriinta galbeedka Belarus waxay dhamaantood isku dayayaan in ay hal jiho aadaan waa dhinaca midowga Yurub waxaa lagu eedeeyay qulqulka tahriibayaasha in madaxweyne Lukashenko uu soo dhaweeyay kumayaal muhaajiriin oo adduunka oo dhan ka socda kadibna uu u tilmaamay xadka uu la leeyahay Poland balse xadka markii ay gaareen sidan ayaa loo soo dhaweeyay diyaarad helikobtar oo militariga Poland leeyihiin ayaa u timid inay dib u celiso balse taas ma aysan shaqeyn xitaa sunta dadka ka ilmaysiisa ma celin waxayna isku dayayaan inay xoog ku jiraan oo ay gaaraan ujeedkooda oo ah ciidda midowga Yurub mas'uuliyiinta Poland qudhooda waxaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay xadka dib ugu riixayeen muhaajiriinta bilihii dhawaa bila ayay xiisadu kordhaysay 6 toddobaad ka hor waxaan la kulanay raggan ku xandhibmay kaynta u dhaxaysa Belarus iyo Poland sidii kubadii oo kale ayay nagu ciyaarayaanba Belarus wayna soo saareen oo xadkeena keeneen Polandna inteena garaacday ayay haddana dib nagu celiyeen Belarus isku daygii ugu weynaa ilaa hadda ee EU ay ugu gudbayaan ayaa halkan ka dhacay maanta waxayna aad ugu eg tahay muuqaaladii xadka Greega iyo Macedonia 5 sano ka hor markii ay jirtay mushkiladii muhaajiriinta Suuriya madaxweyne Lukashenko oo taageerada Ruushka haysta ayaa sheegay in qaladka ugu weyn ay midowga Yurub leeyihiin balse midowga Yurub waxay sheegeen in uu hubeynayo soo galootiga isaga oo taa kaga argudanaya cunaqabataynta caawana waxaa la malaynayaa in tiro ka badan 3,000 ay ku xaniban yihiin xadka iyadoo heerka qabowguna uu ka hooseeyo eber haddaba si aan warbixintan ku maqasheen muhaajiriin badan ayaa dhooban xadka Belarus iyo Poland oo doonayay in midowga Yurub soo gaaraan waa sida xaaladda halkaas ka jira khadka magaalada Warsaw waxa ku jira gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Poland Cilmi Cabdi Skype ku toos ku jira Cilmi Cabdi waynu maqlaynaa wararkan kale saxaafaddu qoraysa ama warbixinta BBC-da xagga Soomaalida Soomaaliin teleg ba imka ilaa hadda soo gaadhay oo aad maqasheen ama aad aragteen sidee way xaalka Soomaalida muhaajiriinta ku dhex jira marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ugu mahadsantihiin BBC waxaan rabaa inaan idiin sheego ilaa iyo haddeertaan inta aan ka warqabo aniga waxaan nasiib u yeeshay inay waddankan Poland soo galaan xadkan ka soo galaan ilaa iyo dhowr iyo 60 qofood inta ku xayiran ama ku maqan lama yaqaan sababta dadka markay xadka soo Belaruska soo saaraan Belaruska waxay ka qaataan dadka askarta Belaruska waxay ka qaataan telefoonada baasaboorada iyo wixii lacag haystaan ka qaataan marka ilaa iyo hadda lama yaqaan inta Soomaali ah ku xayiran xataa lama yaqaan qaarka nasiib u yeeshay inay soo galaan iyadoo dhowr iyo 10 mar la celiyay qaarkood waxa la yiraahdo waxaan waddankan Poland waxa la yiraahdo pushback lagu sameeyay waa soo galeen waa la celiyaa way soo galaan way la celiyaan marka dambe waa la nasiib u yeeshay in la geeyo xerooyin aan laga bixi karin oo xiran oo ku yaal waddankan Poland ilaa haddana inta aan qiyaasayo ama aan ogahay ilaa iyo 60 waan gartay cilmi markaad eegto dadka Soomaalida soo galay Poland waa sida xaaladooda caafimaad ama daryeel yaa wax siiya sidaba xaaladooda tay ma la qaabilay taa maxaad naga sii kartaa warbixin waxaan idinka sii karaa warbixin aniga waxaan kaliya ugu turjumay Soomaalida ma taqaana ilaa iyo 2 bilood ugu dambeysay subax ilaa habeenkii turjumaan ayaa ku jira maarta Soomaalida u turjumaa iyo ciidanka xuduudda waddankan sharciga kiyaala wuxuu yahay qofka hadduu xadka ka soo galo sharci darro waxay maxkamadda ku xukuntaa 3 bilood oo xero aan laga bixi karin xabsi oo kale waaye lagama bixi karo xeradaas 3 bilood gudahooda intay ku jiraan waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan qaxootinimo codsadaan marka Soomaali majority inta soo gashay waan u sheegay waxa ay isla markii haddii la dankeeyo xeradaas codsada qaxootinimo hadda marka waxay ku jiraan procedure-ka qaxootinimada ku jiraan way qaxootinimo codsadeen marka taas waxay ka reebaysaa in waddanka dib loogu celiyo ilaa uu ka dhamaado procedure-kan oo ah qaxootinimada ah ujeedada hadda ugu weyn oo aan rabay inaan dadku sheego waxay tahay waxaan kula talinayaa Soomaalida walaalaheena waad mahadsantahay Cabdi Cilmi waqtiga inagu yaraaday aad baan kugu mahad celinayaa inaad maanta waqtigaaga na siisay oo Cabdi Cilmi oo gudoomiyaha jaaliyadda oo jooga Warsaw Poland buu ahaa isaguna igaga soo biiray Warsaw